Brazil ayaa waxa ay dhigeen mudaharaad ay ku diidan yihiin musharax madaxweyne. 10 kun oo haween ah ayaa qaaday wadooyinka wadanka Brazil si ay uga soo horjeestaan musharaxa madaxweyne ee midigta fog, waxaana ninkan uu u tartamayaa doorashada madaxtooyada Jair Bolsonaro. Erayo ay ka mid yihiin Eleenayo oo ah isaga maahan ayaa ugu qornaa boorar iyo warqado ay wateen, qaarkoodna ereygaas ayay kaga dhawaaqayeen meelaha ay haweenku isugu yimaadeen. Bolsonaro ayaa lagu tooriyay meel dad badan ay isugu soo baxeen bishan gudaheeda oo orole ka sameynayay, haddana weli waa ninka hogaaminaya madaxda u tartamaysa waa musharaxiinta u tartamaysa doorashada madaxtooyada ee la qabanayo 7 bisha Oktoobar ee soo socota. ninkan oo horay ahaa kabtan ciidamada militariga ka tirsan Jair Bolsonaro hadda waxaa lagu yaqaanaa erayo nacayb ah oo uu ka muujiyo dadka isku jinsiga ah ee isu galmooda iyo sidoo kale hogaaminta haweenka oo uu aad uga soo horjeedo, waana arinta ay dumarku diidan yihiin. Mar ayuu waxa uu sheegay in haweenku aysan ku haboonayn in ay hogaanka qayb muhiim ah ka noqdaan, waxaana uu sidoo kale dhowr kale hore soo hadal qaaday nacaybka uu qabo in ay isu galmoodaan dad isku jinsi ah. Waxaa ninkan 63 sano jirka ah ay qaar ka mid ah dadkii mudaharaadka maanta dhigayay barbar dhigeen amaba ay la barbar dhigeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxa ay sheegeen in ninkani uu ku raaxaysanayo erayo ka nixinaya dhagaha muwaadiniin badan oo wadanka Brazil u dhashay.